waxaa guud ahaanba maalintii shalay si rasmi ah ugu soo gabagaboobay koobkii bisha barakaysneed Ramadaan la dhexdhigay ciyaartoyga kala duwan ee gobolkani Togdheer waxaana ciyaartani loolan adag iyo hirdan iskaga hor yimi oo ciyaartani soo gabagabaynayay kooxaha ku kala ciyaaraya magaca Nuuraddiin School iyo Qaydiid waxaanay kooxahani ku soo gabagabeeyeen ciyaarta garoonka caalamiga Lixle Stadium ee magaalada Burco iyadoo ay ciyaartani goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Burco iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi Burco iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan gobolkani Togdheer ciyaartan oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxa ay ku bilaabantay jawi nabadgelyo 45 daqiiqadeed hore ciyaartani waxa ay ku dhamaatay 0-0 halka haafkii dambe markii dib la isugu soo laabtayna ay ismari waayeen labadani kooxood ay kooxda kale waa sheegatay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaartani waxa labadan kooxood la dhexdhigay rikoodhayaal sidii ay koobka ugu kala qaadi lahaayeen waxaana rikoodhayaashii ay ku dhamaadeen 5 gool iyo 6 gool halkaas ay hal guush ku raacday kooxda Qaydiid koobkana loogu magac daray Allah u naxariistay mujaahidkii weynaa ee Cabdulqaadir Koosara ayaa waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka degmada Burco isagoo la dardaarmay dhamaanba ciyaartoygii kala duwan ee ku ciyaaray goobtaasi kulana dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyaguna goobjoog ka ah ciyaartani waxaanay carabaabeen inay koobkani ugu magac dareen mujaahidkii weynaa Cabdulqaadir Koosar waxaynu halkan gabagabayno ugu oo aynu ciyaartii ka dambaystahay joognaa isugu soo baxeen ciidamada ku ciyaaraya Nuuraddiin Schoolka iyo Qaydiid 16 kooxood baa sida la sheegay wareego ahaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaa sida habsamida leh ee quruxda badan ee u socday ay u soo gabagaboobay waxaan leenahay muhiim bay u tahay gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco in laga helo naadiye fara badan ama tiim fara badan si bulshada isdhexgalkeeda iyo horumarka gobolka ee degmadu xagga isboortigu uu koro aad iyo aad baan runtii arinta ugu faraxsanahay waana dhiirigelinaynaa horena waa dhiirigelin imikana waa dhiirigelinaynaa waxaan leenahay inta ay in ka sii badanba runtii waa la idinka filayaa koobkan waxa loogu magac daray ama wareegan mujaahidkii weynaa ee aynu wada naqaanay ee Cabdulqaadir Koosar ugu dambeyntii waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah ciyaartoygii kala duwan ee ku ciyaaray goobtaasi iyadoo aan weydiinay sida ay u arkaan ciyaartani aadka u xiisaha badan ee maanta dhex martay labadani kooxood iyo waliba taageerayaashii labada dhinac ee goobtaasi ku sugnaa waxaana dhammaantoodba hadaladoodii ka mid ahaa maanta waan ku guuleysanay tartankii ka socday garoonka Lixle Stadium waxaan dareenkayga aad iyo aniga kooxdeedaba iyo taageerayaasha shucuurteedu waxa weeyaan shucuur aan la qiyaasi karin waayo waxaan koob ka dhex qaadnay 16 kooxood oo loo furay 18 kooxood loo furay tartanka bisha barakaysan Ramadaan ayaa lagu qabtay garoonka Lixle Stadium maanta koobkii waxa qaaday kooxda Qaydiid dhammaan taageerayaashana waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin saxaabada iyo taageerayaasha faraha badan waxaan aad u hambalyeynaa inkastoo ka qayb qaatay qabanqaabadii tartankan waliba gaar ahaan Nuuraddiin baan naqayaa kooxda Qaydiid oo ay aad iyo aad u shaqaystay waxa kala leeyahay dhammaan cidii ka soo qaatay kooxda la ciyaartay aad iyo aad uga filanaya waa Barwaaqo Aadan Maxamed shabakada caalamiga Daad Mareer News magaalada Burco.